howlgalkii haradiga al-shabaab ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgal qorshaysan ka sameeyay deegaano ka waatisan gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Howlgalkan oo ujeedkiisu ahaa burburinta haradiga argagixisada al-shabaab ayaa ka dhacay deegaanada kala ah Ceeldheere Macalin, Gamboole, Jameeco Jiliyaale, Masiiray, Boqongandi oo ka waatisan gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana halkaasi lagu burburiyay goobo isugu jira isbitaallo ay ku daweynayeen kuwooda dhaawacmay goob maxkamad beenaad u ahayd iyo bar ay ku ururin jireen waxay ugu yeedhaan sakawaadka oo ah dhac ay u geysanayaan xoolaha shacabka Soomaaliyeed ee waxba galabsan. Waxaan qayb ka ahay kolonyo ciidanka sida gaarka u tababaran kumaandooska danab ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Ciidanku waxay wadaan howlgalkii loogu magac daray howlgalka bacsiga haradiga al-shabaab. Ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab oo si wada bacsiga firxadka haradiga argagixisada arxanka daran ee al-shabaab ayaa gaadhay deegaano dhaca gobolka Hiiraan gaar ahaan deegaanka Fiidow oo kala qaybiya gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. Ciidamada ayaa halkaasi markii ay gaadheen waxay sameeyeen baaritaano lagu xaqiijinayo ammaanka deegaankan iyagoona guri u baaray waxayna burburiyeen fariisimo ay halkaasi argagixisada ku lahayd. dhinaca kale kooxda argagixisada arxanka daran ee al-shabaab ayaa halkaasi ku lahayd goob ay ku khaldaan dhalinyarada iyo haweenka isla markaana ku baraan fikirka khaldan ee argagixisada al-shabaab. halkani daawadayaal waa afafka hore ee laga galo deegaanka Fiidow. deegaankan waxa uu kala qaybiyaa gobolada Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan. daawadayaal saarkiisan waxa suran calanka ay isticmaalaan kooxda argagixisada arxanka daran ee maleeshiyaadka al-shabaab. sadawada hore la socoteen ciidanka sida gaarka u tababaran ee kumaandooska danab ayaa weerar jihooyin badan ku soo qaaday deegaanka argagixisada al-shabaab ayaa isaga cararay halkan. haradiga kooxda al-shabaab oo aan u babacdhigi karin quwadda ciidanka ayaa gabi ahaanba faaruujiyey deegaanka Fiidow sida idin muuqatana calanbeenaadkoodii ayaa laga dejiyey waxaana gabi ahaanba cagta la mariyey goobihii ay gabaadka ka dhigan jireen sida godadkan idin muuqdo ay ku jiri jireen horjoogayaal isugu jira ajaanib iyo Soomaali. kooxda argagixisada arxanka daran ee al-shabaab waqtigoodii waa dhammaaday. Shilaawo Cabdilaahi Cabdiraxmaan, warbaahinta ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed, gobolka Hiiraan.